haddii aan soo khulaaseyno waxaan ka hadalnay qoraxda. Waxaan soo sheegnay qoraxda inay tahay xiddiga ugu dhow ee dhulka. Sidoo kale waxaan soo sheegnay bax-cadceedeedka waxaa la yiraahdaa nidaamka cadceedeed ee uu ka tirsan yahay dhulka ayaa waxaa loo yaqaanaa bax-cadceedeedka. Dhammaan qoraxdan, meerayaashan iyo xiddigaha iyo nebulada dhammaantood waxaa la isku dhahaa unug cireed loo yaqaano Milky Way. Intaasba waa ka soo hadalnay. Sidoo kale waxaan soo sheegnay dhammaan meerayaasha waxay iftiinka ka qaataan. Marka dhammaan meerayaasha waxay iftiinka ka qaataan qoraxda ka qaataan. Waxaa ka soo hadalnay qoraxda waxay leedahay 8 waxyaabood oo hareeraheeda ku wareegsanaya maadaama ay cuf isjiidka ay soo jiidanayso. Awood cuf isjiid ay leedahay. Marka maadaama ay soo jiidanayso waxaa jiro 8 waxyaabood oo hareeraheeda ku wareegsanaya oo loo yaqaano meerayaal. Meerayaal maxaa la dhahaa? Waa waxyaabaha ku wareegsada hareeraha cadceedda. 8 waaye waxay u kala horeeyaan qaabka ugu kala dhow yihiin. Meeraha ugu dhow waxaa loo yaqaanaa Mercury oo ujeediin qoraxda aad ugu dhow yahay. Fogaanta u jirana waa 58 milyan oo kiiloomitir lagu sheegay fogaanta u jiro. Kale ee u dhowna waxaa la dhahaa Venus. Markaan asna qoraxda wuxuu u jiraa 107 milyan oo kiiloomitir. Wax meelahaas camal u jira qoraxda. Meeraha saddexaad ee ugu dhow waxaa loo yaqaanaa Earth. Waxay u kala horeeyaan meerayaashan qaabka ay ugu dhow yihiin qoraxda. Ay u kala horeeyaan Mercury, Venus, Mercury, Venus, Earth, Mars. Earth waxaa la meeraha dhulka. Waxaa ku xiga Mars, waxaa ku xiga Jupiter. Jupiter ku xigo. Waxaa ku xigo Saturn. Waxaa ku xigo Uranus. Iyo meeraha ugu dambeeya waa Pluto and Neptune. Meera sagaalaad ayaa jiri oo la jiro Pluto laakiin culimadii xiddigiska markay baareen kadib waxaa la ogaaday inuu yahay meera baaba'ay. Pluto waa meera baaba'ay waaye. 9 ayaa jirta laakiin hadda 8 meere waaye waxyaabaha qoraxda ku wareegsado. 4 kamid ah ka soo hadalnay. Waxaan soo sheegnay dhammaan meerayaashan 8 ah dhammaantood waxay leeyihiin dayaxyo marka laga reebo labada meere oo Mercury iyo Venus oo aan fiirino wax dayax ma lahan. Dhulku wuxuu leeyahay hal dayax. Marsna wuxuu leeyahay 2 dayax. Dhulku waa meeraha kaliya ee nolol ka jirto. Sababta maxaa waaye? Sababta waa fogaanta munaasibka ah ee qoraxda ka fog yahay. Iyo number 2 wuxuu leeyahay biyo iyo hawo muhiim u ah noolayaasha ku nool nolosha dhulka dushiisa. Sidoo kale Mars sa u jeediinbo dhulka labada sabab awgood marka waxaa ka jira nolol. Laakiin Mars waa meeraha afraad ee qoraxda ugu fog. Marka meeraha markaa fiirino waxaa ugu jeednaa midab gaduud ah. Gaduudkaas maxaa keenaya? Waa soo sheegnay waxaan dhaanay waxaa ku badan dhagaxyadiisa waxaa ku badan birta ku badan. Sidoo kale meerahan Mars wuxuu leeyahay 2 dayax oo aan sida dayaxyada dhulka camal ahayn. Labadaas maxaa la kala dhahaa? Waa kuwana Phobos iyo Deimos la kala dhahaa. Waa mahadsantihiin. Meerayaasha kalena si gooni ah ugu soo hadli doona insha Allah. Mahadsantihiin.